waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteyda qaaligaa soo dhawaada meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogtaan. waxaa idiin rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban, sanadkaas sanadkiisa farxad iyo bashbash iyo baraaro ilaahay aynagu wada gaarsiiyo insha allah. waa walaashin farxiya bilan, kusoo dhawaada channelkiina farxiya bilan kookeen. asxaabta qaaliga, maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago jawaab su-aalo laygu soo xoojeystay iyo jawaabtoodii insha allahu tacaalaa. ila socda asxaabteyda qaaliga. waxaa su-aalo igu soo xojeysatay inaan kasoo jawaabo walaashayda qaaliga een aadka u jeclahay, ilaahay ha xifdiyo iyadii awlaadeedaba, umu subeer salmaan. asxaabta qaaliga waxaa idinka codsanayaa inaad janalkeeda tagtaan, aad soo booqatiin. waa abaayo in badan aa wax ka faa-iideysaan insha allah. macmacaanada, cuntooyinka, dhisaynada kala gedisan. abow qofkii waxaan ku yidhi beejkeeda ku xiran kuma khasaaraya, waqtigiisana kama yacni shalaynaya insha allahu tacaala. umu subeer salmaan soo booqda asxaabteyda qaaliga. abaayadaas ayaa igu soo xujeysatay 3 su-aalood insha allah. ila socda 3daas su-aalood iyo farxiya bilan say uga jawaabayso insha allah. sidoo kale anigana su-aalo kale oo xujooyinaan wataa, talo anayaan xujaysan doonaa. meesha waxaa la yidhi qaniya kaa fujisa ma maqli jirteen. meesha waxaa waa laysoo xujaysta, anna waxaa weeye dadaan kasii jaraa sheekada, saas waaye intaasaa socota marka insha allah. ila socda yaa okay insha allah. ma raba in waqtigu sii dheeraado asxaabta qaaliga. 3 su-aalood oo abaayo igu soo xujeysatay waxaa waaye, maxaa adduunka ugu jeceshahay, sidoo kale maxaa adduunka ugu necab tahay, iyo maxaad xiisaysaa. I think inay su-aalaha saas ahaayeen. maxaad xiisaysaa? okay, hal baan rabaa inaan uga jawaabo. adduunka waxaan ugu jeclahay waa cibaadada. yacni cibaado waa garanaysiin soo maaha, cibaadada qof kastaa jecel. aniga waxaa jeclahay marka intaan goob cilmi aan tago, ama ha ahaato maxaadiro, ama ha ahaato meel oo mataqaanaa markis diiniya ha ahaato oo aan kitaabo ama aan kasoo marsanayo, ama somehow aan wuxuun diiniya aan kasoo qaadanayo. marka goob ilaahay lagu xusaayo aan intaan istaago aan soo faa-iido hal shay oo aanan awal horay u aqoonin ama aanan horay ugu baraarugsanayn. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa aayad aad taqaanid laakiin micnaheeda aadan ku baraarugsanayn inaad soo faa-iido soo maa. markaasoo kale ayaan adduunka ugu farxad badnahay. yacni waxaad jeceshahay waxaa waaye waa waxa markaad heshid ama aragtid aadka u faraxdid soo maaha. waxaad jeceshahay waa saas. ama waxa markaad haysatidba aad faraxsan tahay, waxaas weeye waxaad jeceshahay. soo aniga waxaa qalbigaygu aada u xasilaa, aan aada u jeclahay waa cibaadada. marka aan shay diini ah aan soo faa-iido, mas'alo diini ah markaan soo faa-iido, ama aan horey u aqaano oo markaas anoon hilmaansan markii la ii sheega aan kusoo baraarugo, ama yaanan aqoon oo markaasba aan barto mas'alo diini ah markii ama la xasuusiyo ama aan soo faa-iido, baan adduunka ugu jeclahay. maalinka aan qur-aan akhriyo iyo maalinka aana qur-aan akhrin oo ay kala duwan yihiin. waxaan faraxsanahay saa-id oo aan qanacsanahay maalinka aan at least page qur-aan akhriyo. cibaadada waa waxa adduunyada naloo keenay. qof kaste wuu jecel yahay cibaadada, laakiin aniga si gaara waxaan usii jeclahay mas'alo diini ah maalinka aan ka faa-iideysto ama aan soo faa-iido. goob cilmi intaan tago, ama ha ahaato masaajid ama markas diini ha ahaato. su-aashaas waa ku dheeraaday. maxaa adduunka ugu jeceshahay? aniga waa kaasaa cibaadada, gaar ahaan markaan shay mas'alo diini ah aan soo barto oo soo faa-iideysto ayaan adduunka ugu jeclaa, uguna faraxsan badnahay maasha allah. okay, su-aasha labaad, maxaa necab tahay? waxaa nibcahay taas meel fogba kama raadini. adduunka beenta oo nibcaha, beenta iyo qofka ii sheegaba waa nibcaha. taas waa halkaas uga gudbaya, kuma dheeraanayo. beenta waa shay xun, waana shay xaaraan ah. muslimiinta dhexdoodana waa shay mamnuuc ka ah. laakiin annagiyo muslimiina
annagiyo og inay beenta dhexdeena xaaraan ka tahay ayaan haddana waxayba noo tahayba yacni biyo lacabay nooga fududahay. qof waxaa arkaysaa been sheegaya oo dhahaya wallaahi bilaahi tallaahi, subxaan allah, waa ku dhaaranaya, waa been, waa ogyahay inay xaaraan tahay haddana wuu ku dhaaranaya, wuxuu leeyahay wallaahi bilaahi tallaahi buu leeyahay. marka aniga adduunka waxaan ugu nibcahay beenta iyo qofka ii sheegaba waa nibcahay. subxaan allah, ilaahay baana ka magan galnay wixii gafa oo inaga dhacaya, wixii khalad oo inaga dhacana ilaahay subxaana wa tacaala baan mar walba cafis weydiisanaynaa. insha allah bini aadan baa leeyahay waa la wada khaldamaya. halkaa 2 su-aalood baan uga tegay. su-aasha saddexaad, maxaad xiisaysaa? maxaad xiisaysaa? okay, aniga waxaan xiiseeyaa interest gareeyaa waa tacliinta maadi iyo diini labadaba aad baan u xiiseeyaa. dadka i garanaayo oo igu xiran ama ardaydii aan wax isla soo baran jirnay muddada dheer ee beejkayga ku xiranna taas way ogyihiin. aniga yaraantaydii ilaa hadda waxaan aad iyo aad iyo aad u xiiseeyaa waa waxbarashada ama tacliinta. 2 sanoo dambe aad ba wax uma baranin, laakiin wixii 2 sano u dambeeyey ka horeeyey, gelin hore iyo gelin dambe iyo hameyn intaba ilaa intaan garaadsaday oo waxbarasho soo bilaabay waxaan ahaan jiray qof buug iyo kitaab sidata, buug ama kitaab baasitay. marka maasha allah tabaarakallah, aniga waxbarashada ama tacliinta ayaan aad iyo aad u interest gareeyaa. insha allah meeshii aan rajaynayay inaan gaarana weli maanan gaarin. dhanka diiniga iyo dhanka maadigaba iisoo duceeyay insha allah in ilaahay hadafkayga midka adduunya midka aakhiraba ii rumeeyo. asxaabteyda qaaliga, qof walbana waxbarashada waa u muhiim, siiba hooyooyinka waxbarashada muhiim ayay u tahay, tacliintana muhiim ayay u tahay. haddii aad tahay hooyo oo mataqaanaa aadan wax baranin, yacni iska dhaaf adiga horta inaad ku shaqaysatid ama inaad siyaabo kale uga faa'iidid ilmahaagii iyo gurigaagii. waxbarasho la-aanta hooyada waa laga dareemayaa. marka hooyooyinka waa inay dadaalaan, gabdhuhu waa inay dadaalaan. haddaa hadda hooyo tahay iyo haddaadan ahaynba, sababta haddaada xitaa hadda hooyo ahayn waad noqon doontaa insha allah. marka at least haddaada ku shaqaysan tacliintaada waxaa ku anfacaysaa ilmahaaga iyo gurigaaga ayaa ku anfacaysaa. waayo ilmahaaga maanta markaa iskoolka u didhid, markuu kaa soo laabto waxaad ogaan kartaa ilmahaaga maanta si fiican inuu wax usoo qaatay iskoolka, inuu xaadiray, inuu gooyay, yaa qur-aankii maanta shalay beejka u joogay weliba beejkiibu taagan yahay mise wuu ka soo baxay beej kalaa loo soo mariyey. haddii kale waxaa noqonaysaa waxaa la yidhi gabar hooyo baa waxay ilmaheeda yacni tacliin may lahayn, qur-aanka dabcan wax kamay aqoonin, cunugeeda subax walba iska dugsiyay u dirtaa, u kalaysaa, iyadana intaa dabay ku jidhaa, waxbay u karinaysaa, asna waxbarasho u aadaa soo ma. marka cunugan yarkaa waxba kama soo baxa, meelahaasu iska soo istaagaa. maalinkii dambey tiri hooyo haye saaka qur-aankii ma ka soo baxday? suu yidhi haa. say tiri haye? suu yidhi hooyo bismillaah saan uga soo baxayba camaa intaan ka bilaabaan yatasaa'aluuna ku geeyey buu yidhi. cama yatasaa'aluuna wuxuu uga dhigay dhowr beyjiyaa, camaa intaan ka bilaabay baan yatasaa'aluuna ku geeyey buu yidhi. markaasay tiri maasha allah tabaarakallah, canjeeladii subaxa u badis. marka yacni ma dhicin bay la tahay, laakiin soomaalidu inta badan waxyaabaha dhici kara waxay ka sameeyaan matalaad ama yacni waxbay ka sawiraan. so waxaan u arkaa inay tahay yacni waxaa laga soo qaaday haddii hooyadu maadaama ay tahay macalimadii koobaad, maadaama ay tahay barbaarisadii koobaad, haddaysan ayada wax baranin inay yacni taasoo kale ay dhici karto. soo dhammaanteen waxaan isku dhiirigelinaynaa gabdhaha soomaaliyeed inaynu wax baranno, diini iyo maadi kii kuu fudud markaasba, oo marka ay ka gaari kadhidba inaad waqtiga ka faa'iidaysano insha allah. aniga halkaasaan uga baxayaa. waxaan rajaynayaa inaa su-aalihii umu subeer salmaan aan ka soo jawaabay. saaxiibe su-aalahaaga waa kaasaahe, jawaabtaadii waa taasaa waa iga haysaa. okay asxaabteeda qaaliga, anna waxaan rabaa inaan xujaysta dadka la qaniya kaa fujishe. waxaan rabaa anigana inaan xujaysto 3 gabdhood. 3daa gabdhood waa 1 hibo hibaaq channel, 2 umu ikhlaas, 3 mushtaaq cabdey.
saddexdaa gabdhood insha allah ii soo booqda asxaabteyda qaaliga waa gabdho aad iyo aad u qalbi wanaagsan maasha allah wax soo saar fiican la ka faa'iidi doontaan insha allah asxaabteyda gabdhahaas soo wada booqda insha allah umu ikhlaas hibaaq iyo mushtaaq cadeey okay asxaabi ana saddexda su'aalood oo aan gabdhahaas wato aan raba inaan weydiiyo youtube leyda ah waa tana kow su'aal waxa weeye waa musbeer baan kaga dayanayaa waa maxaad adduunka ugu jeceshahay adduunka maxaad ugu jeceshahay okay adduunka maxaad ugu jeceshahay adduunka markaan leeyahay maxaa ugu jeceshahay aniga saddex jawaabood ma rabo maya istaghfirullah hal jawaab ma rabo halka jawaab waxa weeye waalidkay baan ugu jeclaa waalidka qof nicmo ma jiraba taas qof kasta jecel soo waalidka maxaa ka soo haray wixii waalidka ka soo haray oo aad jeceshahay noo sheegaysaa okay adduunka maxaa ugu jeceshahay su'aasha labaad waxa waaye saddexda gabdhood isku si baan u wada weydiinayaa haddii maanta lagu dhiibo 1 milyan oo dollar oo lacaga saa u joogtay hal mar waxaa lagu dhiibay 1 milyan oo dollar oo lacaga lagu dhiibay waxaa lagu yiri lacagtan hoo adaa iskale mulkigaaga waaye okay saddex shay bas baan ku qaban kartaa saddexdaas shay ku qabanaysidna adaa choice kale adaa dooq kale laakiin muhiimadda waxa waaye 1 milyan oo dollar saddex shay baa ku bannaan inaad ku qabatid okay saddexdaas shay oo aad ku qaban lahayd ama aad ku qarash garayn lahayd 1 milyan ee farta laga saaray noo sheeg طبعا halka waa la fahmaa umaleeynaya 1 milyan hadii lagu dhiibo oo dollar oo lagu dhaw waxa ku banaan saddex shay inaad ku qarash garaysid lacagtaas ama aad ku samaysid ama aad ku bixisid saddexdaa shay ee 1 milyan aad ku qarash garayn lahayd aad ku bixin lahayd maxay tahay su'aasha saddexaad u dambaysa wadankee ugu jeceshahay adduunka inaad ku noolaatid adduunka intaad joogtid wadanka ugu jeceshahay inaad ku noolaatid waa wadankee waa kaas anigana su'aalahaygi waa rajaynayaa hablahaasna inay fahmeen saddexdaas su'aalood waa idinka adduunka maxaad ugu jeceshahay waalidka kuma jiraan waalidka jacaylkiisu waa lama taabtaan xagga ii dhig laakiin waxyaabaha kale waalidka ka soo haray adduunka maxaa ugu jeceshahay sidoo kale 1 milyan oo dollar hadii lagu siiyo oo lagu dhaho saddex shay ku qabo saddexda shay oo ku qaban lahayd saddexda shay oo ku qaban lahayd noo sheeg su'aasha u dambaysana wadankee ugu jeceshahay adduunka inaad ku noolaatid waa idinka jawaab wacan insha allah asxaabtayda qaaliga aad iyo aad u mahadsantihiin waa idin jeclahay soo dhawaada hablaheenaasna soo wada booqda subeer salmaan oo ahayd qoftii soo xujeysatay soo booqda saddexda gabdhood anigana aan xujeystayna booqda mushtaaq cadeey hibaaq channel iyo ikhlaas insha allah asxaabtayda qaaliga haddaan ugu cusub tahay soo dhawow subscribe dhag gambaleelka furo soo aad ula socotid video kasta aan soo galino haddaa hore noola joogtayna ku mahadsantahay la joogidaada like nooda share de commentiga iyo dhiirigelintiina quruxda badanna waa idinkaga mahad celinayaa mar walba noo soo badiyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.